السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلي مقال عصب مقال كان وحا aan kugu sharxi doonaa oo kugu faa'iideyn doonaa shan adeeg oo ku jira WhatsApp kaaga oo markaasi aad iyo aad u isticmaali doonto ama markaasi aad iyo aad ugu baahan tahay adeega ugu horeeya ama midka ugu horeeya aan bilaabi doonaa waxa uu yahay marka ugu horeysa WhatsApp kaaga ay soo furan doontaa WhatsApp markaad soo furto ka ugu horeeya waxa uu noqon doonaa markaasi wallpaper ama markaasi sawirada baad beer chat aad u isticmaali kartaa ama qof kastoo la sheekaysanayso ama halkan kugu jira inaad mid walba sawir gaara aad saari karto imika tusaale ahaan haddii aan kaygan eego ama saa ugu dhufto gudaha wax sawira ah kuma jiraan waxa aan sameyn karaa in halkan aan ku dhufto then wallpaper aan kusoo dhufto halkan waxa aan ka dooran doonaa markaasi nooca ay yihiin haddii aan bright doonayo halkan aan kasoo bixi doonaan haddii aan dark doonayo halkan ay kasoo bixi doonaan oo sawir kasta nooca aan rabto ayaad markaasi u dooran doontaa in tusaale ahaan mid kamid ah aan halkan dooran doonaa haddii aan kan saa ugu dhufto then aan set wallpaper halkan waxa uu soo saarayaa for the start markaasi waxa kale uu soo saari doonaa for all chats in any time ama chatska oo dhan wada saar ama maaragtay chatkan oo kaliya wada saar kaas ugu sareeya ba dooran doonta markaasi haddii aad rabto inaad calaa qof ama calaa shakhsi aad sawir gaar ah saartid okay baan oran doonaa okay markaan idhaahdo halkan waad iga arkaya sawirka waxa uu soo saaray markaasi halkan balse laakiin kan haddii aan eego ma saarna kuma jiraan oo calaa markaasi chat ayaan markaasi u dul saari doonaa waxaa kaloo markaasi aad sameyn doontaa markaasi inaad sawirka nooca aad rabto halkan ka dooran doonto ka aad rabto halkan ka dooran doonto sawirada oo dhan aad halkaasi markaasi ka xulan doonto ayaad markaasi halkan markaad kan doorto then select aan idhaahdo halkan sawirkaas ayuu ii saarayaa waxaa kaloo aan sameyn karaa in aan qaybtan imaado then markaasi aan ka eego sawirka kale ima saarna halkan waxa ii saaran sawir waa kala gaar weey adeeg labaad waxa markaasi uu noqon doona in halkan kugu hayo isaguna wuxuu noqon doona sidoo kale search ama qaybtan markaasi wax baaritaanka ama tusaalahan haddii imika haddaan halkan ku dhufto halkan haddii aan ku qoro qofka chatkiisa ama magaca kugu qoran haddii aad halkan ku dhufato ama tusaalahan ka barkhad ku qoran yahay ku dhufanaya barkhad buu soo saaraya barkhad halkan waxa uu soo saaray uun markaasi magaciis ama chatkiisii uu soo saaray laakiin haddii aan doonayo sawir inaan ka dhex raadiyo ama link ama document aan ka dhex raadiyo photos baan ku dhufanaya sawiradii iyo wixii markaasi uu ii soo diray ama qofkaasi uu ii soo diray oo dhan baan halkan markaasi ka helaya ama documentski ama linkski midku doono ahaado in tusaalahan haddii aan halkan ku dhufto haddii aan ku dhufto then links aan doorto wax linkiya xabadaas uu soo diray adiga arkay bartaas ayuu kaga soo baxaya documentiyada jiraan halkan documentiyada ayuu kaga soo saari doonaa si automatically ayuu markaasi halka kaga soo bixi doonaan oo halkaas ayaad ka raadin doontaa waa search aad iyo aad markaasi u cajiib badan qofka sawirkiisa halkaas maad ka dhex raadin doontaa adeega saddexaad aan halkan kugu hayo isagana waxa uu yahay markaasi disappear in tusaale ahaan qofka aad disappear garan karta ama aad mudeyn karto inta aad qofka la sheekaysanayso tusaale ahaan aan ku siiyo hadda haddii aan kan saa ugu dul dhufto then aan imaado qaybtan halkan aan imaado halkan haddii aan imaado halkan waxaa igu qoran disappearing messages disappearing haddii aan ku dul dhufto continue aan idhaahdo then aan on idhaahdo qofkaas waxa aan la sheekaysan karaa 7 days yacni chatiska iyo waxa aan u dirayo ama markaasi waxa aan la wadaagayo idil 7 cisho kadib automatically waaba ay ka tirtirmi doonaan qofkaas halkan waa ka kugu soo saaray turn on disappearing message new message will disappear from the chat after 7 days 7 cisho kadib waxa aad qofkan wadaagteen si automatically ay isku tirtiri doonaan waa markaasi option aad iyo aad u cajiiba markaasi halkaas ayaad kala markaasi ka soo furan doontaa disappearing message si markaasi qofkii aad 7 days oo kaliya ugu ogolaato wixii aad u dirtay inay ugu jiraan chatkaas isla markaana iyaga ayaa automatically iska tirtiri doona adeega afraad ku haya waxa uu yahay markaasi edit ama markaasi inaad si automatically ugu edit kareyso waxa aad WhatsApp-ka ama statuska soo dhigayso tusaalahan qaybtan haddii aan ku dhufto statuska then aan halkan ku soo dhufto kan aan ku dhufto halkan waxa aan ku sameyn doonaa sawirkan aan soo dhigayo qoraal ama qoraal baan halkan kaga qori doonaa hadda haddii aan ku qoraalkan waxaan doonayaa haddii aan ku qoro then qoraalkii aad soo dhufto waan ka bedeli karaa halkan soo dhufan kan maka ama kan ka doonaysa abaad dooranaysa hada kana soo dhufan bartaaban soo dhigi doonaa soo kale halkan waxa aan doonayaa halkan inaan wax kala soo dhigo kamaadin soo dhufto sawirro cool ayaad ku sameyn kartaa oo aad iyo aad markaasi u qurux badan ayaad halka ku sameyn kartaa
sidoo kale waxaad ku sameyn kartaa drawing saa u qorto dan aad sawirkii soo dhigto meeshii aasaaskii ama meesha kale dhigaysa inaad soo dhigto si aad iyo aad u qurux badan markaa dadkiina u soo jiito kan haddaan soo yarweynayo kaas waa editable WhatsApp halkaas markaasi ku dhex qori kartaa aad markaasi automatically aad wixii usoo dhigaysaa halkan then waxaad soo post gareyn doontaa sawirka haddii aad rabto inaad wax ka jarto halkan waad ka jari kartaa isna waad soo odhan kartaa haddii aad rabto inaad ka bedesho filters kalena ka sameyn doontaa then halkaas ka bedeli doontaa nooca aad rabto ayaan ka dhigi doontaa nooca aad doonayso halkan ka bedeli doontaa si automatically ayuu kugu edit gareynaya aad iyo aad baa markaasi kan u wanaagsan yahay waxaan eegi doonaa markaasi ka shanaad ama adeegga shanaad ee markaasi WhatsApp-ka aad ka dhex adeegsan karto iminka tusaale haddii aan qaybta WhatsApp-ka dib ugu laabto halkan aan imaado kan waxa uu yahay markaasi calaa shakhsi in aad markaasi iska mute gareyn karto notificationska kaaga soo dhacaya iminka tusaale haddii kan saa ugu lufto dan halkan sii taabto qaybtan aan imaado mute notifications baa halkan iga soo baxaya halkan waxa uu soo saaraya 8 hours 1 week iyo always oo markaasi midkii aad rabto aad dooran doonto haddii aan always doonto mar walba qofkaas notificationskiisa ma maqli karo ama yani wax cod ma sameyn doonaan kaliya WhatsApp-ka way soo galayaan wax cod ma sameyn karaan xilliga soo galayaan ma ogaan karo waxba uu ka markaasi uu ka darabaya qaybta codka oo mute gareynaya dan okay baan oran doonaa saas ayuu markaasi kugu furaya iminka tusaale ahaan haddii aan halkan ka soo diro message lama maqli doono message-kaas oo markaasi si mute ana ama aamusnaana ayay halkan kugu soo galayaan haddii aad rabtana waa iska xidhi kartaa halkaas ayaad markaasi ka xidhi kartaa waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doonto shanta adeeg ma shantaas markaasi features ee ku jira WhatsApp-ka aad iyo aad kana markaasi u coolka waad ka heli doontaa baan rajeynayaa tan iyo muuqaalka dambe intaan isugu iman doono nabadeeg Ramadan Kareem